sida la wada socotaan maalinimadii shalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ku dhawaaqay inuu celiyay dhalashadii uu ka haystay dalka Mareykanka. barnaamijkan guud ahaantii waxaan diiradda ku saarayaa oo ku dul istaagayaa sababta ku kaliftay madaxweyne Farmaajo inuu celiyo baasaboorkii Mareykanka inagoo og inuu yahay baasaboor culus oo dadka Soomaaliyeed qaarkood ay naftooda u biimeeyaan sidii ay u heli lahaayeen. sidoo kale barnaamijka waxaan ku eegayaa qoyskiisu ma celiyay baasaboorka mise madaxweynuhu waa keligii ciyaalkiisa ma celiyeen xaaskiisa ma celiyeen arrintaas oo ah iyaduna arrin muhiim ah. barnaamijka intaan u guda gelin oo musharax Shiin ku reebay Shiina Culay oo ka codsanaya nacala shaydaan ku yaala fiidiyoga inaad sii share gareyso oo la wadaagto asxaabtaada channelkayga inaad subscribe gareyso si aad u rukumato wararkayga like-ta inaad soo tuujiso wax dad waaweyn ku wada hadlaan maaha commentigana inaad soo dhiibatid. saa la socotaan war-saxaafadeed baa shalay ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya. war-saxaafadeedkaasi wuxuu u dhignaa madaxweynuhu inuu celiyay maanta baasaboorkii uu ka haystay dalka Mareykanka. war-saxaafadeedka waxa lagu sheegay madaxweynuhu inuu soo bilaabay qorshaha uu ku celinayo ama habraaca uu ku celinayo baasaboorka Mareykanka maalintii uu xafiiska fariistay ilaa ay xilligaana ay ka wada shaqeynayeen garyaqaano Soomaaliyeed iyo kuwa Mareykan iyo laamaha socdaalka ee dalalka Soomaaliya iyo Mareykanka. maantana ay soo idlaatay sidaa darteedna uu madaxweynuhu si iskii ah u celiyay baasaboorka maadaama dastuurka federaalka Soomaaliya uu ogol yahay inuu qofka madaxweynaha ah ama muwaadin kasto Soomaaliyeed uu haysan karo laba dhalasho. horta nin baa hadda koor xanuunsaday ninkii markuu xanuunsaday Soomaalida waxa caado u ah iga barta hadii hore uu aqoon qofku markuu xanuunsan yahay oo soo booqanaysid waxba loo qaada waxba loo geeyaa sharaab wixii aad qaadi karto biscuit gacanta lagu shaqaada. ninkii alaab badan baa loo keenay marka waan xanuunsanayo waxa ma cunayaba wixii ba halka yaala wixii la cunayo dhanba inta ku teersan nin baa soo booqda ninkani waa xayraan wuxuu cunaa ma haysto wuu eegaamsi ninka cunta loo keenaya ma cuno mid kale la keenaya ma cuno isaguna waa gaajaysan yahay mahmaah baa laga qoray dooniga ninkii cuni lahaa ma buko oo uu la jeedo war aniga cuntada cuni lahaa aniguna ma buko. marka horta baasaboorka cidi u baahnayd Farmaajo ma amaat dadka kala u baahnaa ninkii cuni lahaa dooniga ninkii cuni lahaa ma buko dad baa saacada Donald Trump u sii socdo oo $10 ku bixinaya oo raba inay Mareykan inta tagaan waxa weeye ay baasaboorka helaan kuwa xabsiyada ugu jira kuwa u shaqeynaya dhidid isaga keenaya sidii bahalka u qaadan lahaayeen. marka dadkaasi Farmaajo maaha Farmaajo baasaboorka intuu u baahnaa waa soo hayeystay waa ku soo caanamaalay waa ku soo dhirgay maanta wuxuu uga baahan yahay baanba horta jirinba. adduunyada waxa la rabaa inaad fahantaan baasaboorku qofka waxba kama bedelo ama Mareykan hayso ama baasaboor Soomaali hayso. baasaboor muhiimadiisu waxa weeye inaad ku dhooftid oo dalkaaga kaga baxdid kuna soo laabatid. baasaboor kasto adduunyada kan ugu fiican iyo kan ugu liita labadaba waa lagu dhoofi karaa meel kasta waa ku tagi kartaa shardi baa ku xiran waa in jeebkaaga qoyan yahay. Farmaajo jeebkiisu ma qoyan yahay mise ma qoyana taamiyan ku hadlimayno intuu qoyan yahay buu qoyaan dhaafay odaygu waa la leeyahay inta uu dhaafmayno wax kan haysta halku wax ka cunay halku wax ka qaatay anagu waxa gelimayno laakiin waxaan idin hubaa bacdama madaxweynaha Soomaaliyeed noqday bacdama dalkaas yahay dalka qaado aan qaatay inuu odayga jeebkiisu qoyan yahay. baasaboor Mareykanka marka waxba uga baahno kan Soomaaliga oo diblomaasiga buu ku safri doonaa. hadda ka hor gabar ganacsata baa 2012 Mareykanka aaday markaas Mareykanku wuxuu siiyay 6 bilood oo fiisa baasaboor Soomaali wata oo markii ay rabtaan ay kaga soo bixi karto multi entry markii ay rabtaan ay ku gali karto. anigii waa yaabay waxaan loo reeday adba Soomaali baa sitaa ma safaaradda u tagto safaaradii aanu raba inaan aado baan waxaan saday markaas waxa la yiri war baasaboor safaaraddu banki way ka rabtaa bankaaga lacag ma taala gabadhan bankigeeda $2 milyan baa yaala sanadkii 200 bishii 200,000 baa loo diraa 200,000 waa dirtaa. Mareykanku gabadha isaga u baahan wuxuu ka faa'iideeyaa sababtoo waa qof uu hubo inaysan gaajisnayn wadankiisa iska dhiibeen waa qof uu hubo inay markay tagto ay wadankii kharash gelinayso wax iibsanayso wadankii dhaqaale gelinayso. markii baan dib u joogsaday marka hadaa baasaboor Soomaali oo kamida baasaboorada adduunka u liita haysato laakiin dhaqaale haysato war Mareykan sheegaysa Parisna waa ka casheynaysa Berlinna waa ka quracanaysa habeenkiina Beijing baa u heynaysa Shiina ka dhacaysa. madaxweynuhu marka baasaboorkaas uu haystaa sababta ku kaliftay marka madaxweynuhu inuu dhiibo waa dhowr arrimood. waxa uu horeysa
madaxweynaha hadda mudaxileedkiisu waa soo dhow sanad baa u haray sanadka u haray bari ka maalin markuu xilka ka tago hadduu baasaboor Soomaaliga maxaa ku dhahay diblomaasiga ah haysto dee adduunyadu madaxweyne Soomaaliyeed baa aragtaa waa la soo dhaweynayaa meel walba qaybta VIP da laga saaraya airportada maxaa ku dhahday gawaari calan lagu galbinaya madaxweynaha wadankaas iyo dawladda wadankaas ilgaar ku eegaysa hadduu u baahdo waxa weey waa la soo dhaweynayaa madaxweynuhu waa cusumaya shaah buu cabiya waa la wareysanaya hadduu laakiin Mareykanka haysto nin shiciba buu noqonayaa safka Shiina culay galo buu la gelaya haddii Shiina ka horeeyo oo airport ka soo horgalo waa inuu ka dameeyo kama horeyn karo safkaas ku jiraya marka diyaaradda laga deerana shidadiisa isagu waa inuu baadi doonto shidadeedii meeday halka waa inuu taagnaado horta taas waa sababta labaad waxa weeye madaxweynaha sida la socotaan Mareykanka waa wadanka adduunyada ugu awood badan madaxweynaha Soomaaliyeed iyo madaxweyne kasto adduunyada ay kama maarmi karo inuu wadanka booqdo madaxweyne Farmaajo tan intii la doortay Mareykanka ma tigin laba jeer baa Mareykanka waxa ka qabsoomay shirkii golaha loo dhayahay qaramada midoobay oo Soomaaliya golaha waxaan wadaa qaramada midoobay xubin ka tahay madaxweynayaasha dhan oo adduunyadu shirka waa tagaan laba faa'iido ku jirta faa'iido koowaad waxa weeye adduunyadii oo dhan baa ku taawanaysa oo ku dhageysanaysa oo ku hor fadhida waa inaad u khudbadayso dalkaaga meeluhu marayo waxyaabuhu yigsanayo waxyaabaha u qabsoomay waa inaad adduunyada u sheegtid waa fursad waa platform adduunyada ka hadli karto taasi waa koow faa'iidada labaad oo shirka inaad ka qayb gasho oo dunidu ay uga qayb gashaa waxa weeye madaxweynayaasha dunidu oo dhan baa isku meel imanaya marka iyagii oo dhan baa waxa la yeelanaysaa shirdacoodyo cidii uga baahan tahay madaxweynaha Mareykanka la kulmaysa Ruushka la kulmaysa boqorka Sacuudiga la kulmaysa safarka saddex biri qaadanaya waxa kula kulmi kartaa dhowr iyo 10 ilaa 20 madaxweynaha kula kulmi kartaa oo danihii ah ka lahayd maxaa ku dhahday ka dhamaysan kartaa laakiin haddii aadan shirka tagin oo u baahato madaxweynaha Ruushka u baahato madaxweynaha maxaa ku dhahay Sacuudiga boqorka Sacuudiga waxa ku kalifaysa inaad diyaarad qaadato 20 madaxweyne oo aad saddex biri kula kulmi karto waxa weeye waxa ku qaadanaysa dhowr bilood inaad tagto way ku qaadanaysa de Putin hadduu yiraahdo Farmaajo Putin baan aadaya de Putin Moscow iskuma heli karaan laakiin qaramada midoobay dadkii oo dhan baa wada fadhiya marka intuu hormaro salaamaya arbal si gaar ah soo aragno waranaya waqtiga waa faa'iido waraf baa marka laba shimbirood ugu dila madaxweynuhu shirka waa ka baaqday labadii sano oo hadda jiray oo maxaa ku dhaxay xilka hayay marra khayraha ka qayb galay ra'iisul wasaaraha marna wasiirka arrimaha dibadda ka qayb galay hadda shirkaasi September buu dhacay madaxweynuhu 1 August uu dhiibay wuxuu rabaa September inuu shirkiiba u socdaa marka shirkiiba hadda furmaya hadda u socdaa dhalashada wuxuu u dhiibayaa inuu shirka ka qayb galo farqiga u dhaxeeya markuu Soomaali yahay iyo markuu Mareykanka yahay waxa weeye markuu Mareykanka yahay tixgelin helmiyo maxaa ku dhahday haf maamuus la siinmayo airport loo xirmiyo wadooyin loo xirmiyo gaari maasheedso kala jiidan lagu qaadimayo salaan loo saarimayo mootooyinkii nalka bluega bixin jiray lagu darimayo istabir baa la oranayaa isxilqaan aqalka ku kaalay marka uu daarta qaramada midoobay gelayo waa la baaraya waa muwaadin Mareykan laakiin markuu yahay diblomaasiga haysto waa la soo dhaweynaya ciidamadii baa salaanta u saaraya madaxda kale adduunyadu la mid yahay gawaari kala jiidan baa lagu qaadaya mootooyin baa horbaxaya guriyo guest house oo gaar ah la dejinaya ilaahu baadan beerka beel waxa ku yiri qaramada midoobay xafiiska markuu gelayo irdado dhan baa la furaya madaxweyne isagoo aan la baarin buu jaggelaya hadii kale waa la baaraya tan kale oo muhiimka waxa weeye madaxweynuhu bacdama Mareykanka ku noolaa dukaan hadduu mobilka contract ka qaato hadduu mobilka qaato dukaan 10 sano ka hor hadduu ka qaatay deen oo lacag si ay u bixin waayo 10 euro ku harsanaa dukaankaas waa dacweynaya markuu dacweeyo madaxweynuhu safarkii waa ka baaqanaya maxkamadda inuu tago oo wajahana waa tahay sababtoo ah de ma jirto protection macna ilaalin xasaanad ka maxaa ku raada in la dacweeyo madaxweyne ka ilaalinaysa hadduu Soomaaliga haysto xasaanad buu helaya sidoo rabo u soconaya laandheere dhalay in libaxsan ka taabte buu marka ahaanaya madaxweynuhu marka sababta ugu weyn oo baasaboorka u wareejiyay waa taas wuxuu rabaa inuu hadda shirka September bisha dambe ka dhici doono Mareykanka xarunta qaramada midoobay ee New York inuu ka qayb galo buu maxaa ku raashin kaas uu rabaa halka lagu soo dhaweeyo si hanaan madaxda kaleeto sidii labada sano hore ku dhacday inaysan ku dhicin doonaya sababta ugu weyn oo madaxweynuhu baasaboorka u celiyay waa taas qoyskiisu ma celinaya iyo ciyaalkiisa afayeenkiisa oo xalay wareysi siinay BBC da aan ka daawaday waxa uu sheegay
waxa la yiri qoyskiisu macelinaya wuxuu yiri qoysku iyaga khiyaar ciyaalkiisu iyaga khiyaar u leh xaaskiisa iyaga khiyaar u leh haddii celinayaan iyaga u taala waxa hawl madaxweynaha u taala ma arrinta aadan uga niyad jabay madaxweynuhu hadduusan xaaskiisa mateli karin oo qoyskiisa hogaamin karin oo wuxuu yiraahdo aysan ku qancayn oo ku go'ayn seedad kale seeshiina wuxuu sheegaya shalay markii la yiri madaxweynaha Cabbaas Boorka celiyay dad badan baa yiri baa ka fikray arrinna macalisan madaxweynaha ku dayataan madaxweynaha qoyskiisa hadday ku dayeen la yihiin qoyskiisa hadaan wuxuu sheegi karin qoyskiisa wadadu mar hadaysan la mareen yaa madaxweynaha taladiisa qaadanaya yaa ku dayanaya madaxweynaha arrintaasi waxay ahayd maanta qoyskiisa inuu xukumo anaga qofku waa inuu dadkiisa u sheegi karo warna cala shidan ku yeesho inuu macalin celiya idin kula waa inuu dhihi karo dadkiisa dad ladan weeye maanta maxay baasaboor Soomaaliyeed uga baahan yihiin madaxweynuhu isagoo reerkiisii iyo ciyaalkiisii iyo xaaskiisii ku qancin la inay baasaboor Mareykanka iska celiyaan shiinana kuma qancinayo shiinana ma yeelayo shalay markii la waa celiyo baasaboorka kaygan saa u soo saaray saasaan u eegay ma turtaa ma qaadataa ma haystaa ma celisaa madaxweynaha ku daytaa dalkaagii ma imtaa anoo leh baa kelmadda markaa maqnaa jeebkayga dama gashado ku seexday markii madaan gashaday madaxweyne waxaan leenahay madaxweynuhu haddaad rabto waddankan inaad xukunto dadku kuu khasbanaado ku dabagalo aa hogaamisid dee reerkaaga kasoo bilow reerkaaga waa inay marka hore ku baakayaan aadan arrintaa uga xumahay waana uga naxay laakiin de waa iska umuro daakhiliya oo qoys weeye lama geli karo haddana marno ina adii reerkaaga dhibin ka dhex abuurno saacada tafaha ku dhigto baasaboorkaas de waa ku gaartay ina celisid waa ku gaartay nin ladan baa maanta tahay ladan nin ladan baasaboor Mareykan madaxweynaha ma hay dadka shacabka inay celiyaan waa in Soomaaliya hagaagto maanta shacabkii baa yaacaya oo sii socda kuwa doonaya saaran kuwa naftooda biimeeyo maxaa ku raacay badda ku dhimanaya maxay u dhimanayaan dadkaas nolol bay rabaan naabad bay doonayaan shaqo rabaan caafimaad bay rabaan marka muhiimadu waxa weeye baasaboor baa la celiyay waxa kan muhiim badan ma noqonayso muhiimada kuwa waxa weeye wadankii in laga dareemo oo qof kasto muwaadina kan joogana oo ku khasbanaado wadankii ku nagaado kan maxaa ku raacay dibadda ku maqana oo wadankii u soo maxaa ku raacay u soo hanqaltaago ku soo noqdo waa in isbedelka wadanka laga arko taasa muhiim ah markii wadanka isbedel laga arko waxa weeye nin dhalinyaro oo soo tahriibaya ma jiro kuwa dibadda ku maqana de waxa keenay wadamada duruufa keentay way soo laabanayaan waa musharax shil ku reebay shiina culeed ku dhaafay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.